وقرين بينو قورن مرحلته وصامري دستور وما سنتها يا عبد الرشيد وحصامري دستورك مراحل kala duwan isagoo marka axdi qarameed uu yahay ayaa markii uu horeysay UNISOM intay joogtay ayaa isku day waxa la bilaabay iyadoo la rabay in gunta hoose laga soo bilaabo dawlad iska oo marka AMISOM iyada ay ku ladnayd waxaan xusuustaa waxaan kamid ahaa guddigii markaasi lafweyn hotelka la yiraahdo la dajiyay oo aan isku la jirnay rakada ay dhinteen qaarkooda oo maartay mashallaystay Allahu naxariisto shaati gaduud iyo mawlid macaani gabadha maartay iyadana runtii maartay reer Puntland maartay gabadheena ahayd intaas oo iyaga maartay dadaalkii la geliyay ayaa maartay hadana ay markii dambe UNISOM markay dalka ka baxday ayaa waxa meesha marka soo galay in hadana wixii dib u heshiisiin hadana markii la bilaabay ururo siyaasadeed maartay ayaa iyagana ay yimaadeen ururo siyaasadeed yadaasi marka iyaga laftirkooda ayaa waxay bilaabeen inay isu tagaan hadana isbahaysi ay noqdaan iyagoo sida hawsha ay ku socoto watii hadana carta la tagay carta markii la tagay ayaa waxay iyadana ay yeelatay maartay axdi qarameed oo iyadana markaasi dawladda dhexe kaliya inay iyadu maartay ay tahay aanan jirin wax la yiraahdo maamul goboleed iyadana maartay ku qodnaa maartay axdi qarameedkaas gabadha aan Puntland waa caashigeele hadii aan maartay iyada aan xuso midda kale markii sida uu ahaa marka isagana carta axdi qarameedkii hadana waatii la yiri looma dhama oo hogaamiye kooxeedyadii iyagu ay noqdeen kuwa ka baaqsaday oo shirkaasi aan ka qayb galin sida awadeed la yiri shirkaasi maadaama aan loo dhamayn ama aan iraado dib u heshiisiintaasi tu kale ayaa la iclaamiyay oo lagu qabtay Mbagati oo marka Eldoret inta la tagay hadana loo soo wareegay dabadeedna ma aragtay halkaasi la yiri waa loo dhan yahay 2 sano iyo bar oo markaasi ayagoo hadana isbahaysiyadii oo SRRC qola ay ahayd oo soodari oo ay ku soo sameysteen dastuur ama aan iraahdo axdi qarameed charter qola kale oo ayagana sidaas oo kale isla group kale oo ayagana Nakuru markii hore la baxay oo ayaga ka jabay SRRC-daasi markii dambena ayagoo G8 maartay wata ayagana ay yimaadeen ilaahay kuma samadiido hadana dawladii madaxweyne Cabdiqaasim ayaa iyadana lagu soo biiriyay oo si ay maartay loo dhamaado shirkii dib u heshiisiintii iyagana waxay wateen axdi qarameedkoodii oo ayaga kii hore oo ayagana ay ku soo sameysteen Djibouti ama carta sida iyo si lamid ah ayaa ayagana ku kala afaraad qolada civil society la yiraahdo oo ayagana markaasi ay sameeyeen ururada bulshada waxa soo dhan qolo waliba waxay wadataa mid ayada u gaar ah Puntland iyadoo markaasi ka hor oo iyada ay haysatay maamul ayada u dhisnaa iyo sida Somaliland iyadana ay nidaam ayadana ay sameysatay labadan iyo dawaaba ka horeeyeen axdi qarameedkii marka wixii 2 sano iyo bar loo fadhiyay waxa la sameeyay wax la yiraahdo dib u heshiisiintii in la sameeyo charter cusub oo federalism ah ergana markii dambe oo 800 gaaraysa ay ansaxisay sidaasi marka ayaa hadana 6 buug oo kale ay isku wada ahaayeen macal federaalka oo buugna markuu federaalka la qoray iyo sida uu shaqeynayo mid kale buug kale la qoray oo asagana ahaa dib u heshiisiinta sida ma artay loo dhaqan gelin karo sida kale waxa la sameeyay waxa la yiraahdo xabad joojid oo asagana buug lagu qoray oo ceasefire ah waxa la sameeyay asagana buug kale la yiraahdo disarmament ama yani hubka dhigis waxa kale oo la sameeyay isagana buug oo marka hanta isu celin ah waxa soo dhan maartay kulli waxay ahaayeen wixii 2 sano iyo bar laga shaqeynayay oo markii dambe laakiin aniga gudigii waxaan ku jiray charterka ama axdi qarameedka waxyaabaha hadda dastuurkan saameynta kule oo markaasi ka yimid oo waxay ahayd in ragii ama hogaamiye kooxeedyadii isbahaysiyada ku wada bahoobay iyo dawladii iyadana carta madaxweyne Cabdiqaasim tiibkiisi waxa la isku mari waayay qodobo waxay qolo waxay wadataa central government qolo waxay wadataa axdi qarameedkoodii waxay ku saleysan yahay wax la yiraahdo autonomy qolo wuxuu ku saleysnaa maartay waxa la yiraahdo
ما فederalism waxaasoo dhan markii la isku daalay la isku xiiqay iyo qoladan markaa maxaa la oran jiray civil society-ga oo maartay bulshada rayidka oo ayagana qolaba meel kale oo ayada gadaal maartay ka fadhida wixii oo dhan marka la isku wada daalay waxaan xasuustaa ereygan state la yiraahdo waxyaabihii la isku qabsaday ka mid ahayd laakiin waxa ku dhigay waxay ahaayeen Puntland oo iyada markaa maamul u samaysnaa waxay yiraahdeen annaga ma ka tanaasulayno waxaan nahay state Puntland state baan nahay waxaan xasuustaa caraale wiil maartay ka tirsanaa xukuumadii markaasi ee la soo dhisay ayaa oo groupkii wuxuu ahaa qayare iyo oo ayaga G8 wuxuu yiri macquul ma markii la isku mari waayay ee waxyaabo fara badan la isku qabsaday waqtigiina meesha la isku raagay waxa la yiri waxoo dhan kham waraam hal isku daro wixii baa markaas la isku wada daray waxay iska noqotay wax markaasi jacbur ah oo laakiin la yiri mar un meesha laga dhaqaaqo maadaama nidaamkii dawladeedna la dhisay si markaasi un wadankii meeshan soo aadi lahayn go'aan lagu gaaro waxa soo problem oo ayaga ay soo wada mareen iyo wixii isdiidanaa iyo qodobadii oo sida ayaga iska hor iimaanay waxa soo dhan ayaa waxa lagu soo socday ilaa hadan laga soo gaaro 2012 markii xagga 2004 anaga dibashiisintii iyo isku wada qaadatay iyo dhismihii dawladda ee markaasi ayaa dalkii markaan ku soo laabanay oo waliba khilaaf iyo anagana soo kala dhaxgalay laakiin anyhow bay dhaw iyo hadana markii dambe aan isku soo biyashoonay anagu xamar iyo wax soo kala aadnay Jowhar laakiin hadana wixii aan soo wadnaba 2012 kii markii Sheekh Shariif madaxweyne uu noqday oo Cabdullaahi Yuusufna uu isxasilay ayaa hadana mar kale hadana charterkii dib u eegis lagu sameeyay hadana odayaal oo 135 oo genuine traditional leaders awal bal dhahay oo odayaasha rasmiga ah oo asalka ah ee beelaha Soomaaliyeed ay hoggaanwa ayaa ayaga hadana way ansixiyeen oo ayagana charterkaas oo laakiin kumil gaar ah ama ahdi qarameed kumil gaar ah